Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xildhibaanadii Soomaaliya oo xanaaqsan ayaan rabaa inaan ka hadlo. Haddaad subscribe-ka hore noogu aheedana waa mahadsantihiin. Haddaad nagu cusubtihiin noo saara, like-tana saara. Haddaan ku sii socdo xildhibaanadii dowladda Soomaaliya, shirkii oo xirmay, kala fadhigii oo xirmay ayaa haddana la keenay sharci in la marsiiyo aysan rabin. Hadalladooda waxaa ka mid ah sida tan dhegeysi wacan. xildhibaanada sharafta leh fadhiista kulligiin hala fadhiisto. codsiga madaxweynaha inta ogol gacankaa taagan. 20 xildhibaan oo niic haysata oo wasiirro niica lagu soo wada taxay ayaad arkaysaan waxa ay gurmaan garaacid dhigayeen. waxaa bilowday hubgadashadii ugu tirada badneed la sameynay madaxweyne waddankan meesha ah kuwa daxal uma aha. maanta wax sharciga khilaafsan baarlamaankii oo dhammaaday ururada loo yimaado waa ayaan darro aad u weyn aan istixraamna gadaashan laga mahadla raalli lahawniyo orod shaqo yeelo. madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku socdaa waddanka meeshii ugu halista badneyd wixii shalay uu ka digayo maanta ku dhaqmaya. inuu saa waqti iska lumiyay ummadan waqti uu ka luminaya mana socon doonto aslan wallahi waan hubaa ma socon doonto. ilaa idinku dharshay shalay kaliya meeqa ku dhintay oo galgaduud meeqa ku dhimatay oo mudug maxaa ka socda oo maxaa ka socda SSC deegaanada maxaa ka socda. waxay ahayd in maanta baarlamaanka fasax degdeg la geliyo deegaanadooda aadaan dib u heshiisiin ay ka bilaabaan. ay baarlamaanka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo labada aqal ay ku shirsanaayeen taas oo sababtay in wax sharci darro ah golaha markiisii ugu horeysay aan ahayn oo mar dhowr jeer ay dhacday sidaan oo kale in sharci darro golaha la yimaado baarlamaanka la dhageysan waayo xubnihii ka aragtida doonaa in wixii la doon laga doodo la diido in mataqaana baarlamaankii oo sharciyan xirmay oo wax yar ka dhiman yihiin in ay haddana la sii furo. waxaad la socotiin baarlamaanka sharci ma aha markuu sii gabagabo in sharci cusub la keeno sharci ma aha. waxaad la socotiin waddanka waxa ka socda madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku socdaa waddanka meeshii ugu halista badneyd wixii shalay uu ka digayo maanta ku dhaqmaya. madaxweynuhu shalay haddaad diidanayd in waddankan sharci darro iyo xoog la isku maquuniyo maanta inaad adigu horseeto waa nasiib darro. oday waddankan horey 5 sano soo maamulay 5 sano mucaarad soo ahayd waayo arag inaad tahay la filaay laakiin waxaad ku dhaqmaysid maanta ma aha waa nasiib darro. waddanka dagaalada ka socda waa la socotiin wax geeda ka socda ma indhaha laga qabsan karaa wax ka socda SSC ma laga qabsan karaa wax ka socda gobolka Bayma laga socda Soomaali oo dhan maanta waxa ka socda dagaal qabali ah. waxaa bilowday hubgadashadii ugu tirada badneed la sameynay madaxweyne waddankan meesha ah kuwa daxal uma aha. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay ogaato doorasho qof iyo cod cidna ma diidana laakiin in wadadeeda la maraa muhiim ah. wadada la maray ma aha sharci iyo jujuub iyo baarlamaanka inta lagu dhaaf bulshada Soomaaliyeed xoreyn bay u baahan tahay nabadeyn bay u baahan tahay dib u heshiisiin madaxweynaha kama hadlin ilaa idinku dharshay shalay kaliya meeqa ku dhintay oo galgaduud meeqa ku dhimatay oo mudug maxaa ka socda oo maxaa ka socda SSC deegaanada maxaa ka socda. waxay ahayd in maanta baarlamaanka fasax degdeg la geliyo deegaanadooda aadaan dib u heshiisiin ay ka bilaabaan. doorasho suurtagal ma aha ma shaqaynayso cod badni cod yari ma aha hadii la shaqaynta wax muhiimada sharciyad ma tahay sharciyadu waxa suudan ay ma noqonayso. marka annaga waxaan ka digaynaa dawlad goboleedyo sharci darro markii saddexaad koonfur galbeed aan ka soo jeedo waa markii saddexaad madaxweynaha November kasta hal sano u kordhinaya war sharciyan intuu ka jira meel uu ku qoran yahay madaxweynaha noo sheego in dawlad goboleedyadu November kasta uu kordhi haddii ay taas socotana waddankan wuxuu aadi doonaa meel halis ah. waan ka digaynaa dadka Soomaaliyeed aqliga u saaxiibka ha ka tashtaan wax soo waa la dhageysan karaa ma aad u maasantiin. xildhibaanadan waxay leeyihiin dhulkii danta guud dadkii baa laga saaray inta laayaa laga saarayaa waa la gadanayaa dad lacag haysta ayaa laga gadanayaa oo shicib kale ah dowladdaana gadanaysa miisaaniyaddan laguma soo darin. meel walba dagaal baa ka socda gado bay ka socdaa wuxuu ka socdaa sool wuxuu ka socdaa galguduud. madaxweynuhu wuxuu leeyahay doorasho qof iyo coda yaa rabaa inaan qabto. doorashay qof iyo coda lagu raadinayo si khalad ciddii danile ma lehe. waxay leeyihiin Puntland way tagtay Somaliland gacanta laguma hayn Jubbaland waa tagtay shirka waxaan dhahnay
madaxweynaha iyo soo gelin si qalada inta la soo gashay baa khiyaano la sameeyey guddoonka baarlamaanka si qalad uu dhaqmayaa qof kastoo hadal is yidhaahdo oo codkiisa inuu dhiibta rabana qof kale ka hoos jaqjaq leh waxay leeyihiin xildhibaanadu sidaan wax ku socdaan si fiican maaha madaxweynaha waxay leeyihiin in baarlamaanka la xiray ahayd oo baarlamaanka nin walba uu gobolkiisa aado oo uu nabadeyn ka bilaabo oo dadka kala dejiyo anigu waxay la tahay xildhibaanadu inay saxan yihiin laakiinse xasan waxaa u cad nin hadal lagu soo shubay weeye ismaaciil cumar geelle oo dadaa madyan gaarin haysta baa wuxuu midhaa ku yidhi dadkaana anugu kor ka haystaayo xasanow adiguna xamar kor ka hayso laakiinse wax soconaya ma aha anu waxaan oran lahaa madaxweynaha xildhibaanadu way kuu sheegeen waxaa shala diiday sharci darro aad shala diiday saa kuu socon mayso niyow madaxweynuhu haddaa caqli leedahay dalkan doorasho qof iyo cod cidna diidi mayse dadka dowlad goboleedayaasha xukuma madaxweyneyaasha la heshii dadkana isdagaalayana dad heshiisiyo u dir kolle waxay la tahay somalilan xabadda ay ridayso khaatimo ku ridayso lacagtooda adaa bixinaya ismaaciil cumar geelena hubkiibu soo dejinaya maadaama somalilan cid hub ka gadaysa aysan jirin hadda ka horna waxaa lagaa sheegay inaad tiri cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka somalilan waxba iskuma tihin laakiinse waxaad ka wadaa dhulbaanta daarooda ila dagaalaya marka daarood baa neebcayo wixii la dagaalayo waa saaxiibkay waad ka wadaa kole xilligaagu waa uu dhammaadee sharcigan socon mayo lafta gareenna waxaa ku keenay sodogiis oo shirka u galaysiiyey marka waxaan socon mayaane soomaalida heshiisiya xasanow kolley adoo khalad sameynaya oo sharci daradaas ku socda yaa teendhada imow lagu dhihi doonaa adoo wejigaaxsan ayaad xil ka degi doontaa oo aan sharaf lahayn haddana caalamka lagama sharfo oo waa arkaynay madaxweyne william huuto oo albaabkiitu kaa soo xirtay anigo oraan kaa qadayna lagu yiri waardiyiista ku dheen oraan kaa qadayna oo naga tag duurkaa noo imaanine ayaa kaamirada lagugu qabtay madaxweyne farmaajona dallad ayaa loo fidinayay dallad hoosteeda soconayay marka niyahow caalamkiina sharafku ma lihid oo sharaftii waa kaa dhacday haddana waxaa la sheegaya axmed madoobe william huuto intaa u tagtay baa tiri na heshiisay william huuto oo axmed madoobe marka caqligaagu halkaasuu marayaa william huuto wuu ku farcaya axmed madoobe nala hadashay markaa dhahdi maxaa yeelay wuxuu la sii saaxiibaya axmed madoobe maxaa yeelay inaan dad ahayn buu arkayaa iyo qof wax maamuli kara barnaamijka halkaas oo baxaya daawashadeen waa ku mahadsantihiin commentii kusoo qora aragtidiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabaday